with a heavy heart that I have to announce that we've located the remains of 13-year-old Nicole Madison Lovell. Sorry for the pain my actions have caused Nicole Lovell and her family. It is my deepest regret, and I'm aware my actions have serious consequences. taariikhda markay ahayd 27 January 2016 abaara 6 subaxnimo gabar yar oo lagu magacaabo Nicole Madison ayaa ka soo baxday daaqada gurigooda iyadoo iska qarinaysa hooyadeeda isla markaana wadata busta yar iyo telefoonkeeda inkastoo ay aad u daayareed haddana damaceeda ayaa ahaa inay la kulanto saaxiibkeeda balse maxaa dhacay haddaba intaan bilaaban muuqaalkeena haday tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelkan fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan ku dhaafin mahadsanid Nicole Madison ayaa ku dhalatay magaalada Radford ee gobolka Virginia waalidiinteeda ayaa lagu kala magacaabi jiray Tan Weekes iyo David Lovell markii ay sanad jirsatay waxaa beerkeeda laga helay nooc kansar oo naadir ah waxayna u baahatay in laga bedelo beerka kadibna loo geliyo beer kale taasoo ay ugu deeqeen lamaanayaal gabadhooda dhimatay markii ay gaartay da'da 4 sano Nicole Madison ayaa gashay koomo waxayna ku jirtay muddo 6 bilood ah Nicole ayaa gashay qaliimo kala duwan intii lagu guda jiray daweynteeda. Qaliimadan ay gashay awgeed waxa dhuunteeda iyo caloosheeda ay ku reebeen nabro. Markii ay soo yara weynaatay, waxay bartilmaameed u noqotay ardadii kale ee ay isku fasalka ahaayeen, kuwaasoo mar waliba ku caayi jiray nabraha ku yaala jirkeeda. Nicole ayaa mar waliba intay qolka hoos ka soo xirato kaligeed ku dhex ooyi jirtay. Aad ayay u dhibsan jirtay inay aado iskuulka, iyadoo mar waliba waalidiinteeda ka bari jirtay inay iska joogto guriga markii ay dhacaysay arintan Nicole ayaa ahayd fasalka 7 waxayna dhigan jirtay iskuul lagu magacaabo Blackback Middle School subaxyada kamid ah hooyadeed oo rabta gabadheeda inay u kiciso iskuulka ayaa aragtay daaqada qolka gabadheeda oo furan Nicole ayaa goor hore ka baxday dariishada waraysi ay siisay warbaahinta Nicole hooyadeed waxay sheegtay in markii ay weysay gabadheeda ay wacday telefoonkeeda balse nasiib darro uu dansanaa sidoo kale waxay sheegtay inay wacday Nicole ardadii ay isku fasalka ahaayeen balse ay weysay cid u sheegtay gabadheeda hooyada ayaa intaa kadib wacday booliiska waxayna dambibaarayaasha isla markiiba bilaabeen raadinteeda haweeney darisle ahayd qoyskan ayaa warbaahinta u sheegtay in Nicole mar ay u sheegtay inay saaxiib la tahay wiil 17 jir ah magaciisana lagu magacaabo David They were slave riding in the snow in the back on the hill and she was talking about this boyfriend she had that was 18 and went to college and his name was David. sida maanta ay sameeyaan dhalinyaro badan Nicole ayaa aad u isticmaali jirtay baraha bulshada sida Facebook, Instagram, Snapchat iyo Cake. Adiga muuqaalkan daawanayo waxa laga yaabaa markii kuugu horeysay aad maqasho abkan. Cake ayaa soo baxay markii ugu horeysay sanadii 2010. Abkan ayaa caan ka ah dhalinta Mareykanka dhexdooda wuxuuna ka caawiyaa si fudud inay isku dhaafsadaan fariimaha, sawiraanta iyo muuqaalada. sidoo kale wuxuu goob ugaarsi u yahay kuwa raba inay rakaato ama khiyaano kula kacaan gabdhaha yar ee isticmaala application-ka Nicole Madison ayaa aad humuun ugu qabtay inay yeelato saaxiib waxayna barta Cake ka heshay wiil u muujiyay dareen iyo jacayl xad dhaaf ah Nicole ayaa aad ugu faraxsan saaxiibkeeda cusub waxayna farxadaas mar waliba la wadaagi jirtay gabdho markaas daris la ahaa dambibaarayaasha ayaa gudaha u galay Nicole ciwaankeeda waxayna arkeen inay xiriir la lahayd wiil magaciisa ku soo koobay Dr. Tamiston booliiska ayaa baaritaano dheer kadib waxay ogaadeen in magaciisa saxda uu yahay David Eisenhower oo ah wiil 18 jir ah kaasoo jaamacadda Virginia ka bartay injineernimo sidoo kale wuxuu ahaa qof aad u xiiseeyay inuu noqdo orodyahan wuxuuna marka soo hormuuqday telefishinka isagoona ku guuleystay ciyaartooyga isbuuca my personal goals achievable or just out of reach of achievable that way I'm always constantly striving dadkii aqoonta u lahaa David ayaa sheegay inuu ahaa arday aad u dadaal badan 3 maalin kadib markii la waayay Nicole booliiska ayaa jaamacadda ka soo dhex qabtay David si ay u wareysi ula yeeshaan David ayaa booliiska u sheegay inuusan wax luga ku lahayn waayitaanka Nicole balse wuxuu sheegay inay iska barteen aaladda Cake ayna u sheegtay inay da ahaan jirtay 18 sano waxaa sidoo kale uu dambibaarayaasha u sheegay hal maalin ka hor inta aan la waayin iyada oo ka codsatay inuu u qaado iskuulka balse uu aad uga naxay markii uu arkay gabar yar uu ku qiyaasay inay jirto 13 sano oo ka soo baxaysa dariishada gurigooda ayna isaga u war dambeysay xilligaas booliiska ayaanan aaminin warkiisa xabsiga ayayna u taxaabay isla maalinkii 10kii galabnimo booliiska ayaa meydka Nicole ka helay meel u jirta gurigooda 80 mayl waxaa in ka badan 14 jeer midi looga dhuftay caloosh sidoo kale qoorteeda ayaa jabneed
sida ay sheegeen booliiska. Laakiin dheecaanka DNA-da ee David ayaa laga helay faraha Nicole. Waxay sidoo kale dambibaarayaasha ay gaarigiisa ka heleen cadeymo kale oo dheeraad ah, sida midi ay ku yaalaan fara dhiig leh. Markii ay baareen booliiska dhiiggii ku yaalay midida, waxaa soo baxday inuu ahaa dhiigga David. Booliiska ayaa sidoo kale baaritaano ku sameeyay laptopkiisa, waxayna ogaadeen inuu Google ka baaray erayadan hal maalin ka hor inta aan la waayin Nicole. Erayada uu ka baaray Google waxaa ka mid ahaa meeqa saac ay qaadanaysaa in meyd la gubo, sidee qof loogu dilaa daroogo. Markii ay David ku cadaatay dembiga, wuxuu booliisku u sheegay in dilkan uu la fuliyo qof kale. Qofka uu sheegay ayaa ahaa haweeney lagu magacaabo Nitley Kibas. Nitley ayaa sidoo kale injineernimo ka baranaysay jaamacadda Virginia. Waxay dadkii aqoonta u lahaayeen ku tilmaameen inay ahayd gabar mar waliba ku hamin jirtay inay maalin uun ku biirto hay'adda NASA. Markii ay booliiska imaadeen qolkeeda jiifka ee jaamacadda si ay wareysi ula yeeshaan, waxay halkaas ka heleen bustihii Nicole iyo agabyo kale oo ay lahayd Nicole. Booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay bustihii dhiig lahaa ee qolka Nitley, waxaana cadaatay in dhiig ku yaalay bustaha iyo dheecaanka DNA-da ee Nitley ay islahaadeen, waxaana isla markiiba loo taxaabay xabsiga. Nitley ayaa markii hore u sheegtay booliiska inay iyada joogin markii uu dhacay dilka, balse David ay ka caawisay inuu qariyo meydka. Waxay sidoo kale booliiska u sheegtay sababihii uu u dilay Nicole Madison ay ahayd in David iyo Nicole ay mar hore kulmeen ka hor inta uusan dilin, uuna David ka baqayay inuu xabsi galo maadaama uu uur u yeelay gabar ka yar 18 sano. Sharciyada u yaala reer galbeedka ayaa ah haddii gabar ka yar 18 sano aad la samayso galmo iyadoo raalli ka ah ama aanan ka ahayn ay tahay sharci darro, aadna xabsi ku mutaysan karto. Si uu arrintaas uga badbaado, wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka takhaluso Nicole. Nitley ayaa sidoo kale booliiska u sheegtay David uu iyada ku qasbay inay ka caawiso dilka, inkastoo Nitley booliiska u sheegtay inaysan joogin goobta uu dilka ka dhacay. Haddana booliiska waxa u suura gashay inay helaan fariimo ay isku weedaarsadeen aaladda cake, taasi oo labadooda ka wada hadleen suuragalnimada siyaabaha loo dili lahaa Nicole. Waxaa sidoo kale la helay xogta GPS-ka gaariga David. Waxay booliiska ka ogaadeen inuu indhayn ku sameeyay goobta uu ku dili lahaa Nicole. Waxaa sidoo kale qabatay kaamirooyinka meel supermarket ah iyagoo ka iibsanaya midida iyo alaabo kale, kuwaasoo markii dambe laga helay guriga Nitley. Nitley ayaa qiratay dembigeeda, balse iska fogeysay eedeymaha xad-dhaafka ah, waxayna ku adkaysatay inay qarisay meydka Nicole. Waxayna qoyska Nicole ka codsatay inay cafiyaan. Garsooraha ayaa ugu dambeyntii ku helay Nitley inay si buuxda David uga caawisay dilka Nicole, waxayna maxkamadda ku xukuntay ugu dambeyntii 40 sano oo xabsi ah. Sidoo kale David ayaa isagana lagu xukumay 50 sano oo xabsi ah. David ayaa fursad loo siiyay qoyska Nicole inuu la hadlo. Wuxuu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu ku sameeyay Nicole. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: Sorry for the pain that my actions have caused Nicole Lovell and her family. It is my deepest regret, and I'm aware my actions have serious consequences. Nothing can ever undo what has been done, and for that, I am deeply, sincerely, and forever sorry. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan like saar, mahadsanid.